dhex jira waxaad daawanaysaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xamsa cabdi barre iyo madaxweynaha dowladda waqooyi bari madaxweynuhu waa ka dadkii ay si caadi ah u wada salaamayaan oo dabcan maanta reer Laascaanood guud ahaanba meel kastoo ay joogaan waa isugu soo baxeen mar dhow waxaan idin cabiri doonaa dareenka dadweynaha laakiin hadda madaxweynaha ciidamada waqooyi bari oo iyagu ilaa saaka qayb ka ah dadweynaha dabcan tabinta hoos ah ayaan idin soo bilaabnay saaka waa berigii ilaa iyo haddana waxaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ee toos idinkugu soo tabinaysay waxa ka soconaya magaalada Laascaanood oo garoonka diyaaradaha uu ugu horeeyo marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo dhaweyntiisa garoonka kaliya kuma eka laga soo bilaabo garoonka ilaa magaalada banaankeeda haddii aad eegto dadka magaalada Laascaanood waxaad leedahay qofba kuma soo harin hadda dabcan madaxweynaha salaantii ugu dambaysay ayuu dabcan saraakiisha uu salaamayaa annaguna waxaan isku dayaynaa waxaan rabnaa inaan idiin cabirno daawadayaal dadka sida ay isugu soo baxeen maanta magaalada Laascaanood waxaan u baxnay hadda oo aan ka soo dhaqaaqnay dhinacii dareenka waxaan imaanay banaanka dabcan dibadda sida aad u jeedidba dadka guud ahaan maanta qof soo hartay ma jirto waxaad daawanayseen intii hore hadda bal banaanka maxaa ka soconaya waxaan rabaa inaan idiin sawiro waxa banaanka ka soconaya reer Laascaanood ayagoo calamadii wata ayay u soo baxeen inay madaxweynahooda soo dhaweeyaan dabcan halkan waxaa ka socota soo dhaweyn aan heerkeeda la cabiri karin waa kan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo si kalsooni leh u socda dadkiisa u soo dhex galay madaxweynihii isagoo si kalsooni leh u socda ayuu dabcan dadkiisii soo dhex galay waa kaasa Laascaanood maanta qofkii kuma harin dabcan waxaa tani ay muujinaysaa dadkan sida ay ugu baahnaayeen dowladnimo waa hagaag madaxweynaha waxaa ra'iisul wasaare xamsa cabdi barre waxaa madaxweynaha sidoo kale weeliya dadkii guud ahaan Laascaanood maanta qofna kuma harin waa kaas waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dadkiisii si kalsooni leh ugu dhex jira waxaad daawanaysaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya